بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات عبد واحد ولا الواد ما تصنت هاي إيو تي في إرادي هدلسن والدين مهد علنيا أن رنتي ما أنت وحيد دعي وحاد لوغان حي هاي أن صوتو عدد كينا لب ممدنا أو لب جوكتا أيام إنت بدن هايستا أن dadkeena dareenkooda cabiraan oo ay soo baxaan oo ay nabad iyo xasilooni u dhaqaaqaan waa wax wanaagsan laakiin mar kastaba in nabadgelyada iyo xasiloonida la ilaaliyo ayaa aad u wanaagsan si kooban haddii aan u dhaho maanta runtii wixii dhacay waxay ahayd wax argagax ah dadkeena ay dhibaatooyin badan la daala dhacay argagax ma mudna dhinacu doona ha ka yimaado markaad aragtid xaaladda maanta wixii dhacayna intii dhibta gaartay xanuunku waa la qaybsanaya waxaan alla uga baryayaa inuu u dhib yareeyo waxaa argagax noogu filnaa kulligeena muuqaaladii aan aragnay oo runtii qof walba arko dareen argagax leh ku abuurmay markaan usoo leexda dhinaca kale shacab sidoodaba dareenkooda way muujin karaan wayna ku soo bandhin karaan ayagoo ilaalinayo nabadgelyada iyo xasiloonida sababtoo ahna dhinaca dawladana waa inay in eleelisa xuriyada ay dareen ku muujinayaan shacabka iyo isku soo baxa balse waxa mar kasta aad u wanaagsan oo xaqiiqdii dhamaanteena ay tahay inaan wada ogaano in shacabkeena ay muujiyaan deganaan iyo rabshad la'aan dareenkoodan ku soo bandhigaa si nabadgelyo ah waana wada ognaa dalkeena inuu soo baahneen khalqal iyo mushkilad cusub rabshadaha iyo qallaasaha sida caadiga ahba dalalka horumaray oo hay'adaha kaamilka leh ayaan xamili karin oo culays uu ku yahay Soomaaliya waa ognahay anaga sidaan ugu nugulnahay rabshado iyo qallalaaso sidana rabshada waxay u baahan tahay ka hortag laakiin haddii mar ay kacdo celin uma baahna saadarteed runtii aad iyo aad ayaan uga xumahay maanta siday wax u dhaceen shacabka argagaxa soo gaaray mana ahayn waa laga wanaagsanaa oo si kale oo ka wanaagsan ay wax u dhici kareen waa gartay maalmahan waxaa jiray warar cunfi ka buuxa oo dhiila xambaarsan oo hawada la isu marinayay marka maxaa kalifi kara bay kula tahay in xilligan dagaal lagu baaqo ama wax dagaal dhici kara loo sababeeyo iyadoo hadda cabsi noocaas ay jirto arrintan horta runtii mar kastaba dhinac kasta marka laga fiiriyo waxaa sidoo wanaagsan waxa la yiraahdaa nabad inay macaan tahay waxa qofkii colaad soo arkay nabad wax ka macaan ma lahan dadka Soomaaliyeed ayagoo aanan haysan adeegii dawladnimada ay mudnaayeen duruufo kala duwan ee dib ku haysta maanta runtii hadallo cunfi ah iyo colaad kicin ah iyo rabshado ah marna uma wanaagsano dadkana sideedaba in la kiciyaa oo colaad lagu kiciyaa wax qof dareen leh ama naxariis ay ku jirto uu marnaba soo dhaweynaya ma aha sida guud ee basharka caadiga guud ahaan dadkeena Soomaaliyeed kuma basii jiraan sida darteed dadkuna runtii waa in dawladnimada iyo nidaamkeeda xataa dawladdu ay ogaataa inaan marnaba la ogolaan dawladnimo cunfi iyo cabsi gelin marnaba ku dhisan dawladiska Soomaaliyana dimuqraadiyad ayaa aasaas u ah oo dimuqraadiyadana waxay ka bilaabataa dadka in dareenkooda si nabad ay ku muujiyaan iyaga laftirkooda shacabkeenana waan ogahay wanaagooda iyo dawlad jaceelkooda gaar ahaan magaalada Muqdisho oo hadda maanta ay wax ka dhaceen marnaba in aan dareenkooda la qaldin oo aan sida maanta wax u dhaceen wax la mid ah aysan marnaba u dhicin sababtoo wixii maanta dhacay dhinac kastaba nidaamka dawladnimadana kuma wanaagsano shacabkeenana uma wanaagsano waxaana runtii aan shacabka si gaar ah aniga u dhihi lahaa maamulka dawliga ah dadka ayaa iska leh ee shakhsiyaadka ma laha shakhsiyaadka waa la bedeli karaa balse qarankeena weligiis ayuu sii jiri doonaa insha Allah dadka ayayna tahay inay ilaashadaan waxayna ku ilaashan karaan xasilooni iyo dareenkooda inay si nabad ku muujiyaan iyo marnaba inaysan ogolaan inaan la qaldin oo dad rabshad iyo dhibaato wado inay ay dareenkooda nabad ay ku muujinayaan marnaba ay soo dhaxgalaan ma wanaagsano midda dawladda ah dhankeeda marka iyadana la fiiriyo
waxa wanaagsan inaan marnaba la abuurin marxaladda inaan looga sii darin xaalad dalkeena maanta uu maraya waa ka warhaynaa marka guud ahaan dhan kastaba ama ha noqdo shacab ama ha noqdo siyaasi ama ha noqdo qof maanta dawladda jooga waa in qof walba ogaataa in mas'uuliyad ay saaran tahay oo lagula xisaabtami doono dadka dawladana kuma sii jiraan sababtoo ah kitaabka Ilaahay ay gacanta saarteen waxay u dhaarteen dadka inay u adeegayaan waxay u dhaarteen dadka inay u dhimrinayaan waxay u dhaarteen dadkan dhibta haysto haddii aysan waxba u qaban karin aysan dhib ugu dareenin sidaa darteed ayagana mas'uuliyad gaar ah ayaa saaran oo dadka Soomaaliyeedna ay kula xisaabtami doonaan Ilaahay hortiisana lagula xisaabtami doono saa darteed ayadoo guud ahaan ay mas'uuliyadna saaran tahay oo qof walba ay la gudboon tahay haddii aadan wanaag iyo xasilooni iyo deganaansho ku kordhin karin colaad iyo kicin iyo cunfi ha ku kordhin waa gartay taabid marka maxaa la gudboon madaxda dawladda iyo midowga musharaxiinta horta runtii waxaan rabaa arrintan inay mar kastaba la ogaado wax walba waxay ku wanaagsan yihiin wada hadal dadku marka ay wada hadlaanna waxaa la rabaa albaabada wada hadalka inay dhinac walba ka furnaadaan oo si guud ahaan dee ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta guud ahaantoodaba mar kastaba qof walba oo raba inuu ficil ku dhaqaaqana uu iska hormariyo qofka shacabka Soomaaliyeed ee maanta dhibaatooyin kala duwan la daalaa dhacaya ee adeega dawladnimo aan haysan ee nabadda aan haysan qofkii maanta ku fikirayo colaad iyo kicinna ha ku soo dhacda maskaxdiisa argagixisada shabaab dadkeena waxay ku hayaan taa ayaa maanta ay tahay in loo wada istaago taa ay maanta ay tahay in loo wada kaco haddii qofka uu ku fikirayo in day wax la kiciyo wax loo kicin lahaa maanta way jirtaa midda dawladana waxaan leeyahay sidii hadaata aan dhaho waa ku celinaya dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed waxa asaas u ah dimuqraadiyad ayaa asaas u ah dimuqraadiyadaas ayaa lagu wadi karaa laakiin cunfi iyo cabsi gelin marna wax lagu wadi karo waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto oo aan hadalkayga ku biiriyo arrinta maanta dhacday anigoo ka tacsiyadeynayo xanuunka dadka la qaybsanayo waa in la ogaadaa dhinaca dawladda Soomaaliyeed marka shacab dareenkooda muujinayo laga horgeeyo ciidan waxaan qiyaasi karnaa ciidan iyo shacab iska hor yimid waxa ka suurtagal ee dhici karo dadka dareenkooda muujinayo waxay u baahan yihiin mas'uul dawladeed ee la hadlo ee dareenkooda ka jawaabo ee hor yimaada ee tabashadooda dhageysta sababtoo ah laba waajib baa saaran waajibka koowaad waxa ay tahay mid Ilaahay hortii ugu dhaartay inuu ayaga u shaqeynayo wixii dhibna ka ilaalinayo waajibka labaadna waxa ay tahay marka laga shaqeynayo maslaxada iyo deganaanta iyo xasiloonida qofka mas'uulka ah ee xafiiska dawladda fadhiyo culays iyo mas'uuliyad ka badan baa saaran qofka banaanka joogo sidaa darteed wax wanaagsan maaha shacab iyo ciidan in la isku daayo kaligood haddii aan dhinaca shacabka dhankooda u soo jeestano anigoo og daruufta ay ku jiraan culays ka haysto iyo dareenka maanta siduu u og yahay laakiin haddana walaalahayga Soomaaliyeed shacabka qiimaha leh aan ogaano nabad wax nooga macaan ma lahan dareenkeena aan ku soo bandhigna si xasiloon oo nabad ah sidoo kale aan ogaano dadka maanta madaxdooda aan fiirinayno ama dusha dadka maanta ku wada hadlayo way tagayaan berri laakiin qarankeena wuu jiri doonaa caruurteena awlaadeena ee maanta duruufta adag ku jirtana waxay u baahan yihiin qarannimo waxay u baahan yihiin dawladnimo sidaa darteed dareenkiina iyo in aad muujisaan inaad soo baxdaan dastuurka dalka ayaa idin ogol dadnimada Soomaaliyeed ayaa ogol fahamka fikirka saliimka ayaa ogol in qofka dareenkiisa uu muujiyaa taas waa wax uu qofka xorriyada si buuxda u haysto laakiin mar kasta markuu taas sameeyo xasiloonida iyo deganaashaha inuu fiiriyo qof kasta oo dhib ku dhax abuurayana uu banaanka iska mariyo si danta oo tabashada uu leeyahay uu u gaaro asoo nidaamka dawladnimada nidaamka deganaanta nidaamka isu dhimirinta u marayo dadkaas ee duruufaysan dawladda Soomaaliyeedna mas'uuliyad ayaa ka saaran mas'uuliyadda Ilaahay hortii idinkaga saaran iyo mas'uuliyadda oo maanta ay tahay inaad gudataan inta ay waajibaadkaas ahaysaan waa in aad fiirisaan marnaba yaan laga fiirin dadka waxa ku dhex jira waxa ka dambeeyo marka aad fiirinayso xumaan ayaa ku muuqanayso saa darteed fawdo ayay dhashaa waxaa noogu wanaagsan
dadkeena Soomaaliyeed shacabkeena ee dareenkeena muujinaya waa ku celinaya xasilooni iyo deganaan dhanka dawladana ma ahan in ciidan iyo shacab la isku horkeenaa la isku fasaxa laakiin mas'uuliyad dawladeed waa in la qaataa oo dadka tabashadooda la dhageystaa si aysan u dhageysan kuwa xumar raadis ah waa gartay taabid cabdi maxamed ugu dambeyn dhibka ugu badan wuxuu ku dhacayaa malaayiinta qof ee magaaladan muqdisho ee ku nool dadkan reer muqdisho adigoo maamul ah ayaad u soo adeegtay marka fariintaada ugu dambeyso oo aad u diri lahayd maxay noqonaysaa dadkeena marxalad kasta ay ku jiraan waxaan ogahay dhabar adeeg oo uga bixi karaan waan ogahay maanta dadku inay shaqo la'aan haysato waan qiyaas karaa dadka deganaasho oo dhinaca amniga inay jirto deganaan la'aan ee amniga in ay jirto waan qiyaasi karaa duruufo kale iyo aan qalalaaso kale oo dhinaca doonta ama mid siyaasadeed ha ahaatee inay jirto laakiin waxaan dadkayga ugu baaqayaa maalmaha culayska badan way kooban yihiin laakiin maalmo wanaagsan ayaa ka dambeyn doono sida lagu gaarayo mas'uuliyad ayaa idinka saaran iyadoo waqtiga hadda gabagaba lagu jiro mas'uuliyadda ugu weyn ee idin saaran waxa ay tahay in xasilooni iyo deganaansho laga shaqeeyo mar kastana la ogaado awoodda dawladnimada shacabka ayay ka timaadaa dawladnimadana qof ma lahan qof wax meel ugu xiran tahay ma ahan dadka Soomaaliyeed oo idinka iska leh meel walba aad ka joogtaan Soomaaliya idinka ayaa iska leh dawladnimada sidaa darteed wax walba oo dawladnimada baabi'inayo ama dhaawacayo in aad u istaagtaan oo aad si nabad leh oo xasiloon ugu istaagtaan oo aad ka dhiidhisaan waa wax wanaagsan haddii ay noqon lahayd nidaamka qori isku dhiibka ee Soomaaliya sunna u ahayd haddii aad aragtaan inuu liicayo inaad si nabad ah oo xasilooni leh oo deganaansho leh oo dhimrin leh in loogu istaago taa macnaheedu waxaan u leeyahay maanta dawladnimada cid kale idinkama leh idinka ayaa iska leh waxa idinla gudban waxay tahay xasilooni iyo deganaan inaad muujisaan dawladda Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda guud ahaan waxaan ugu baaqayaa mar walba oo ficil adag ama la isticmaalo wax la yiraahdo violence ama la isticmaalo awood in lagu maquuliyo wax faa'iido ma keenayo sababtoo ah waxa tusaale kooban dadka ugu filan wiilka ama gabadha aad dhashay oo caraysan markaad gacanta xoog uga qabatid oo aadan dhimrin ku wasi dhimrina ula hadlin xooga aad uga qabatay ayaa uga sii darayo oo ka sii xanaajinayo iskaba daayay dad maanta duruuftaas ku jira oo dareenkooda muujinayo ma mudno in gacan awood leh ama cabsi gelin leh lagu dayo maanta ma mudno laakiin waxay mudan yihiin dhaga laab u duleelay in lagu dhageysto qol wanaagsanna lagu la hadlo wax alla waxa ay tabanayaana bini'aadanku hadal ayaa deeqo oo dadkeena si hadal wanaagsan lagu la hadlo foodo Soomaaliya way ka soo daashay ilaahay idinkiisna waxaan ilaahay ka bariyaa in Soomaaliya aysan dib dambe arkin oo maanta inta ay haysato hore looga sii socdo mas'uuliyiinta dawladana maanta inta la hayo hore u sii wadaan mas'uuliyiinta kale ee guud ahaan Soomaaliyeed iyo shacabkana la wada ogaado waxa aan dadku nahay waa dawladnimada annaga leh dadka yimaadana way isbedelaan inta ayaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka magaalada Muqdisho degan shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faafahinta qofkaad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE